kulankan oo looga hadlayo furitaanka mashruuca magaceynta iyo nambareynta wadooyinka iyo xaafadaha magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir, qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka iyo ganacsato Soomaaliyeed. Dhammaan dadkii ka qayb galay kulankan oo ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ayaa sheegay inay tilaabo horumar leedahay qorshahan la doonayo in laga hirgeliyo magaalada Muqdisho nidaam cusub oo lagu kala ogaan karo xaafadaha degmooyinka, iyadoo muddadii kulankan uu socdo lagu soo bandhigay muuqaalo ka turjumaya habka nambareynta xaafadaha iyo guryaha magaalada Muqdisho. Ciise Maxamuud Xalane oo ah madaxa mashruucan oo ugu horeen kulanka ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ku dhaliyay in la soo weydiiso mashruucan oo iska kaashanayaan hirgelinta maamulka gobolka Banaadir iyo ganacsato Soomaaliyeed. qeexdid ugu horeysay inay ahayd in barnaamijkan uu sameeyo gobolka Banaadir sida hadda gudoomiyaha igu horeeyay hoodan uu sheegay waa barnaamijyadii ugu horeeyay ee loo sameeyay qaabka jideynta magacaabida iyo nambareynta sidoo kale taariikhiyan waxaan sheegnay nidaamkan loo sameeynayo magacaabida jidadka iyo dhismooyinka lagu nambareynayo xataa inay tahay barnaamij ugu badnaan 10 ilaa 15 sano inay tahay wax ugu horeeyay qaaradda Afrika ee madow taasaan waxaan hadda marka ugu dambeeyay ku soo gabagabeynaa indhahayay in sida hadda ugu qayb qaateen gobolka andhahayay sidoo kale inay ugu soo qayb qaataan ay ku darsadaan hay'adaha kale ee aan maleynay inay ku darsan doonaan. Qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka oo ka qayb galay kulankan ayaa soo dhaweeyay qorshahani. Arrintan waa arrin waxaan qabaa taariikhiya oo furitaana wax kastana waxa gunteeda gaara ama gabagabeeda gaara isku day waxa la qaatay xornimada 60kii inta laga joogana maanta waa la garanaya marka qorshe loo dajiyay sida midkaan hadda loo wado oo kale oo Banaadir ah inay hadda ka hor dhacday u malayn maayo. waxaan qabaa kan haddii lagu guuleysto qof kasta waxay garan kartaa hadda maanta sharaxaadeeda waa wada dhageysanayno aniguna hadda inta dhageysanaysaan kamid ahaa oo maanta lagu bilaabay laakiin waxaan qabaa inay guul weyn ay tahay. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo ugu dambeyntii goobta ka hadlay ayaa si guud uga hadlay qorshahani isagoona sheegay inuu qayb ka yahay dadaalada maamulka gobolka Banaadir ugu jiro dib u dhiska caasimadda iyo horumarinta adeegyada bulshada. annagu marka shirkadan ideadeeda gobolkuna ay partner la tahay waxa weeye annagu ma rabno in aan ka bilowno meeshii aan horey ugu dunnay marka bilaabayna waxaan la qabsanaynaa meesha maanta adduunku marahayo waxaan rabnaa jidadkii inaan magacyayno waxaan rabnaa jidadkii inaan nambarayno number iyo magac ayaa la isugu darahayaa magac iyo number waxaan rabnaa marka guryihiina in la nambareeyo ma dhici karayso London ama dunidaas kama dhici karayso guri in la isku qabsado ama plot of land oo 100 sano ka hor ay qolo lahayd laakiin aan dhisin lagama yaabo in London la isku qabsado lagama yaabo halkaana waad arkaysi waxa ka taagan dhulka musiibada dhulka iyo guryaha la isku haysto iyo warqadaha falsada la sameeynayo iyo waxaas oo dhan lack of documentation way wax document record la'aantana haysato way jidadkeena markaan jidadka sameeyno oo nambaro u yeelno oo jidadkiina magacyo u yeelno magacyo micno sameeynahay al rabaa magacyadaasi waa inay micno sameynahayaan مثل wadan saaxiib ah waad ku magacaabi kartaa. qorshahan diiwaangelinta guryaha iyo xaafadaha magaalada Muqdisho oo ah nidaam burburay 22 sano ugu dambeeyay ayaa haddii uu hirgalo waxa uu kaalin ka geysan karaa sugidda amniga iyo xasilinta magaalada Muqdisho. Maxamed Xasan Cali, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, xarunta gobolka Banaadir, magaalada Muqdisho.